Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sawiradan hortiina ka muuqda waxay muujinayaan nolosha dhabta ay ku nool yihiin dadka reer Falastiin. Kadib markii la soo saaray meydkii la damcay in la aaso, waxaa weerar ku soo qaaday budh iyo haraati iyo feedh iskugu jira ciidamada gumaysiga Israa'iil, damcayna inay halkii ku ridaan oo ku jajabiyaan janaazadii la waday kadib markay si naxariis darro ah u dileen wariyihii shaqadiisa iska watay. Ciidamada gumaysiga Israa'iil waxaa u cuntamila in gabadhan si sharaf loo maamuus leh loogu xabaalo dhulka Falastiin maadaama ay soo gudbin jirtay nolosha dadka reer Falastiin. Waxay isku dayeen inay ku xadgudbaan meydka ridaan, dadka janaazada waday ridaan, ku ciyaaraan, ul la dhacaan, haraatiyaan. Keliya qofkan wuxuu soo gudbin jiray xaqiiqda dhabta ee ka jirta Qudus. Mowqifkan wuxuu muujinayaa nolosha ay ku nool yihiin dadka reer Falastiin. Xitaa inaan lagu ixtiraamaynin iyaga oo wada meyd janaazo wada xabaal u socda, inaan lagu ixtiraamaynin laguna qadarinaynin, aan loola dhaqmaynin waxaan inay dad yihiin sida xayawaanka in loo dabargooyo ama loo laayo sidii wax aan macno lahayn camal. Waa nolosha dhabta ay ku nool yihiin dadka reer Falastiin. Iyaga way adkaysteen dabcan ma wataan waxay ku dagaalaan, dagaal uma diyaar garoobin kuma jirin, waxay ahaayeen dad shacab oo meyd wada. Keliya waxay isku dayeen inay adkaystaan wax walba iyagoo ku dhacayo ayna geeyaan meydka meesha loogu talagalay. Ma taqaanaa arrinka aad la yaabka u leh ciidamada gumaysiga markii la weydiiyey maxaad waxaan u samaynaysaan dadkan janaazadooda, maxaad waxaan ugu samaynaysaan? Waxay yiraahdeen waana la soo tuuray, dhagax tuur baana lagu soo tuuray, waxaana lagu qasbay inaan istifaacno dadkan, inaan layno, inaan burayno. Ma kula tahay dad janaazo wada oo qof la dilay oo xabad asagoo iska socdo madaxa lagala dhacay wada, oo shacab oon hub haysanin oo dhula haysanin ay kusoo diyaar garoobeen oo meyd ka soo saaray isbitaal, inay dad ama ciidan boqolaal askari oo hubkoodii wato diyaar garowsanoo inayba iyaga laayaan u diyaar garowsan, inay dhahayaan haddana aan isku biimayno oon weerar iskaga qaadno. May waa khiyaaliga la iska dhaadhicinayo ama ay Israa'iil dadka u sheegayso. Mashruuca dabargoynta muslimiinta Qudus ay dabada ka taagan yihiin Maraykan iyo midowga Yurub iyo qaramada midoobay iyo reer galbeed dhammaantoodba. Nolosha dhabta ee kula dhaqma dadkaas waxaa kuu sawiraya mowqifkan meeshaan yaalla. Dadka reer Falastiin waa dadka ugu adkaysi badan qowmiyadaha ama qaaradahan aan joogno ee adduunka. Dadka ku nool ama qaryooyinka adduunkan aan joogno dadka ku nool waxay ka mid yihiin qaybaha ugu adkaysiga badan dadka reer Falastiin. Allah yarxamhum wa yusacid macala caduwihim. Assalaamu calaykum waraxmatullah.